wafdi hogaaminayo Sultan Ibrahim Cige Ismaaciil Sultan Qoor oo kamid ah salaadiinta beesha galbeed ee gobolka Sanaag ayaa galabta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Ceergaabe xarunta gobolka Sanaag halkaas oo dhawaan la filayo in lagu qabto shir beeshaasi ayahooda kaga tashan doonaan waxaana wafdigan duleedka galbeed ee magaalada Ceergaabe ku soo dhaweeyay wafdi kale oo hogaaminayo Sultan Ismaaciil Nuur Wacays iyo qaar kamid ah uqaasha beeshaasi ugu horeyna waxa halkaas hadalkiisa kala dambeeyay salaadiin chief caaqilo aqoon-yahan iyo xubno kale laba wafdi oo midna ka yimid degmada midna gobolka Burco marka waxaanu wafdiga ku soo dhaweynaynaa caleemo qoyan oo wato Sultan Ibrahim Cige Qoor wafdiga kalena waxa wata iyo nabadoonadiisa iyo wafdigiisa Ismaaciil Nuur Wacays oo isna la Sultan Qudeen naanaysta war dheer soo dhawaada waxaanu wadnaa shirki بعيدة يونس أنو جوجشي صدقني دقمة سنة ما قبلك دقمة أنو دقنا جوجشي تال بانو كسولو إنه حنولنا سولو هذا وفد ده سعوني يسي أو سعوني يسي إن بدل نصو تراكتي شركة يهوش قبل قابض الشركة يوصو تراكتي بيش وحقبت كده هوله هذا وصو تراكتي بانو سولو وينينا كل يلا بانو سولو وينين طلع كسوك عتمي هرجيس برعو أو رجي شركة يا باب الكيسة يبدو كيسة كلها إعلان كيسي شيء نشانات نشاني اللي بتنكدي 2017 كي رجاس أمانة نوجو يمي يجو وفدة نوجو يمي قبلك أما دقمة السناج وحنولنا وفدة وهجامين أيوه سلطان إبراهيم iyo ragii markii hore ka shaqeynaya shirka keenay Saciid Daahir Barre khadar cilmi waxaanu idin leenahay dhamaantiinba iyo inta la socotayba soo dhawaada ragii xorbaxaya oo ahaa aanu halka ku soo dhaweynaynaa oo uu hogaaminayo Sultan Ibrahim Cige Ismaaciil iyo ragga kale ee waftiga ah ee la socda ayaanu halka ku soo dhaweynaynaa Ceelna Dhaable soo dhawaada ayaanu idin leenahay soo dhawaada gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay Sultan Ibrahim Cige Ismaaciil Sultan Qoor iyo Saciid Daahir Barre oo afayeenka shirka beeshaasi dhawaan ku qabsan doonto degmada Ceergaabo waxaana ay u mahad celiyeen xubnihii iyo dadweynihii soo dhaweyntooda ka qayb qaatay aad iyo aad waxaanu ugu faraxsanahay anagoo soo gaarnay gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaabo oo u nimid dadkaygii inayna soo dhaweeyaan waayeelkii iyo waxgaradkii beesha tan aanu ka soconno weliba qaybtii gogoldhiga samaysay waxaan u mahadnaqaynaa beesha aan hore u soo sheegnay hormuudka ka yahay Sultan Ismaaciil runtii si lama filaan axana filayn soo dhaweynana filayn aad iyo aad u ballaaran oo qurux badan na soo dhaweysay wax socdaalka iyagu daaran yahay inaan u mahad celino walaalaha iyaga balweynta biciida qaybta kamid ah ee degta degmadan Ceergaabo iyo nawaaxigeeda gogosha ay u dhigeen biciida weyne kaas oo ah mid taariikhi ah la ilaawi karin inaan uga mahad celino runtiina guusha mahad celinta aanu noqono biciida inta ugu horeysay uga mahad celinta arinta insha Allah bidnillaahi kariim waxaanu si aan baqaadi doonaa wixii qabya ka shirka annaka u daba fadhiisan doona dhaqanka annagu waa ogeydeenoo daharaan ugu dhawaaqnay maxaan ku raadayay biciida gogoshiisa inaan dhigno gobolka Sanaag ragga joogay ee biciidana waa nagu raaceen gogoshii baanu wadnaa sidii maaragtay maxaan ku raadayay gogoshaas u qabsoomi lahayd iyo meeshay ku qabsoomi lahayd arinteeda aanu wadnaa u soconnaa waana noo hirgeli doontaa fadliga Ilaahay iyadoo aan ceebi ku jirin oo cidna lagu maagan cidna lagu xagxaganaynin beeshu inay danteeda ka tashato beeshu dana badan bay leedahay ma oranayno taasoo malaayiin danood baa ummaduba leedahay taa ummadda kale ay leedahay baan anaguna maaragtay doonaynaa inaan ka tashanno xaasha lillaahi waxa weeye si fiican oo sharaf leh oo qiimo leh ayaa noo soo dhaweyseen waa idinka mahadna celinaynaa intaasi kadibna waxa wafdida loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceergaabo iyadoo la geeyay hoygii ay ka degi lahaayeen magaaladaasi Cabdiraxmaan Axmed